daahiro horta waa ku dhageysanayay kowdee waaya horta sheekadan daarood iyo hawiye horta halka aniga iga dhig anigu hawiye iyo daarood iyo isaaq intaan ku soo wacay midna kumaan odhan horta waa ku soo wacayaa waaya anigoo ka turjumayay inaan adigana ila de waa tashan de qabiil lagu waashay anigana hawiyena ka wakiila tolkayna ka wakiila waaya ayaan horta ku soo wacay waaya adug meelaad ka yani hadda ka keentay warkan iyo meelaad ka qaylisay ma fahmin moogtahay laakiin anigu siday saxda ahayd ee aad leedahay waxbay ka baydhay aldaroodiye ismaaciiliye iyo meelaha la galay baan rabaa inaan hadda horta aan halkan kugu sheego anigaa ku soo wacay waxaan ku idhi daahirow waa bil rabadaan sow aniga 15 sano taariikh ku dhow friends walaalo maynaan ahayn so aniga intaa soo sano yani dadku daahir baa soo dirsaday daahir baa ay naagtan daahir baa taas horta wixii friends hadii la yiraahdo de dadku yay de walaalo noqon oo friends noqon waa anada case moogtahay laakiin anigu social media intaasaan ku wada jirnay intaasaan naqaanay anigoo social media aan ku jirin ayayna horta friends ahayn oo isbaranay oo dad walaala ahayn okay arrintan aniga horta qof markii horena habeenkii dhaweedna waa sheegay waxaan ku yiri arrintan horta qof ii dirsaday igu yiri ignay arrinta wax ma ka qaban kartaa ila daahir dad walba way ogyihiin inaan friends nahay ma jirtaa waa may baan ku yiri laakiin ana damiirkayga anigoo adiguna isoo dirsan oo igu oran arrintaas inantii nimco joogriyo aan tolkayna isoo dirsan ana horta arrinta muslimiyo ilaahinimo u galay oo isir waa bil rabadaan daahirow maanta ana kugu dhegsan arrinta waana bil rabadaan halkaana waad ku joojinaysaa meel cadna inantaas waa ku kala baxaysaan inta ma ku yiri mise kuma oran adiga waxay dhamayso ana ku jawaabay halmar okay intaasaan ku yiri kadib waa kula soo hadlay waxaad igu tiri waayahay waad ila soo hadashay waxaad igu tiri iglanay adaa iga mas-uulaa tiri wixii aad igu xukuntid xataa waxaad ii raacisay haddii aad xataa bilaa hadal aad ii xukuntidoo tiraahid iglanay waxaa daahirow samay xataa diyaar baanu ahay ilaa garweyna dad badan baa ina dhegaysanaya moogtahay macal waxaa taagneed haddaad igu tiraahid bilaa hadal halkaa ku mar oo anaa ku xukumay oo inantaa afkaaga iyo mar dambe yaan lagaa maqlin xataa diyaar baan ahay saasaad igu tiri marka waxaan ku yidhi haddaba waayahaye adiguna waxaad tiri waa maxay tahay arrintaasaa dhacday nimcuna wax ma reeban aniguna wax ma reeban ma garatay oo labadiinaba de waa la oga waxba ismaydaan reeban soo may ahayn okay halkaa arrintii markay maraysay waxaan ku yidhi arrinta halkaa ku jooji waxaan arrintii kalaan tegayaa daahir waa mahadsan tahay waadna mahadsan tahay maadaama aad igu tirid maanta carruurta yar aad dhashay ilmahan dhashan ayaan kaa yeelin adaa iga mas-uula xukun kaama yeela ilmaha yare marka horta taana walaalo waa kaaga mahad celinayaa hawshii kalaan galay dad badanna waan diray waan raadiyey wax leeyahay hawshaas walaalo meeshana de meelay kaa dhaaftay garan maaye waan sheego waxaan ku yiri qoladii reer tolkay arrintaa wuu iga aqbali waayey wax leeyahay arrintaana uma socono heshiis may garto meel ay kaa dhaaftay anigu garan maayo waxaa tidhi waxa la igu yiri arrinta waan sheegay inaad adiguna ay aqbashay reerkii tolkayna ay yiraahdaan arrinta uma socono walaalkay ilka casena uu intuu soo hadlay yiri arrinta de wuxuu halka ka yiri de magaraysa marka arrintaas faraha way ka baxday macnaheedu heshiiskii iyo waantii aan anigu waday waxana loo turjuntay inaan anigu leeyahay daahir baan soo qabanayaa inantii nimcona waan soo qabanayaa meel baan soo fadhiisanayaa dabeetana nin iyo naag baa wada guranaya maanta dhan oo kanaadi tiri waxanaadi tiri anigu taa marna kamana hadlin mana ka hadlin mana u socon laakiin horta saasaa la igu duway ma garanaysaa halkaa markay maraysay sheekadii wejiyo badan bay yeelatay aniguna awalba wixii aan u socday wuxuu ahaa inaan un arrintaan nabadeed go'aa dhigo go'aasna del kala qaato ilaa go'a haddii maxay tahay xataa inan aanay inta isa soo horfaystaan la guraabaasine halkaa xabad joojinta lagu joojiyo dabeetana daahirow de haddii ay sheekadaasi nabadaasi ilaahayba hirgeliyo ay dhacdo dee inaan raggaa jooga lagu kala baxo meeshaas oo raggaas dee ilaa daarood haddii layahay daarood ismaaciil wuu wada joogaaye ama daarood ismaaciil cimaamadaas ha qaado ama ilka case ha qaado
ama Soomaali Maxamed ba qaaday inay sidaas horta anigu saan u socday sidaas ay ahayd laakiin anigu marnaba intaan daaqad idin soo wada saar horta uma socon saasa la iigu turjumay saasana la iigu bedelay warku waa halkaas talabaadna anigu waa sheegay inaad adigu aqbashay igu tiri adaa iga mas'uula reer tolkayna idideen halka markay mareysana caawa waxaan cadeynayay oo kaliya in arintaasi aan ay ii socon weyday oo aan halkaasna kaga baxay waa ka baxay إجري أنا صاحبنا شو تبغى وقت أنا دبي عدي وحلا هذا هاي دارين كدارين ماي إجري فايلس وهذا الشيء وحي تري وحندونيا إن حب جوجون السمايو وحندونيا إن الله أنا هذا وكيل كان نقضه لايف باصور الشيء وحن الشيء وكيل ناقت هاي قاضي متشو أو هذا الشيء هذا كمر مرضى مع الصهال القادم aan ka yeelayo way duuban tahay boodhiri ba kula saaraaqadka shabeelka nugaal hadaa xasato waxa tiri daar casuwana ka wakiila ana ka damiina qofkii nimca ka damiinka ahayd halale ayaan rabaa okay taas aad ugu tiri halka markay aan ka sugay anigu waxa weeye meesha marka laga hadlayo hawiyad daarood ilka casaha wuxuu caayay farxi kobayar كابتن أيوب وعي فرحي كوباير حتى الشيء أنا وحال عاي حاسكي قال وعي وحال عاي هواي يبقى العاي قبل كنت المهي قبله قال عاي فهمتي والد يقي أنا وحمك سكول عليها كلمة إن أنا قبل داس أنا عايو أون هواي يعرفت هذه أيضا عاي وحي عن كأهل إنت تيجي كشيكت أنا كحد جدو أسكيل عليها شرعيا إسلامي الصومالي سكيل عليها لكن أمد بيو وحنكو قرباشا وحي عيد تري كذا هذا كان يجلب بالدليل هذا قبل دارات وكسود ديدين ليش كل هذا مع صنطحي يا أو يا واحد الله أرضي إغلى لي كيسي إن تصاص على تماشط كيسي ترى هذا إسعافية يوناك اللي هذا منطقنا وعمام صار نحيمه أنا اللي إغراني كيسي أسكت دوبني هبيك وحنا كسد حياة أسكت دوبنا هاي ما فهمتي وعمل نبض بالسوقات أما أولاد خلاص عطوا ويقول لي حكي كيف صوصات الطاقة وكو إغرام بعض الحقيقي ما له قدعان والله بو أنا جيبا لقى بيش شيغو نيكي إلك عسي إنك تقويتو صوف وليد قولك خلم يوحو يجري أي لو يسو جيبيني يعني باقي يوحو صوت الصدي إقل الشو قومي إقلنا والله نبضا أباحنا فصوع على علي ملي سيقولي أدقي maxaad u soo jawaabayso dhigi weyse ilka casow waad xadgudubtay been baad iga sheegtay aniga daar calasow ima soo dirsan anaa u tagay hadalkayga haddaan yeelin oo nabadeeda aad diideen xadgudub bay igu tahay inaad mar labaad igu xadgudubtaan ood been iga sheegtaan maxaad dhigi weyse taasi waa mid qodobka labaad aniga yaa seed kusoo jira afkaa ugu soo marisay xaal baan ka qaadi lahaa seedan xaal iga qaadi lahayd arrinta maxaal bay saxaba joojin bay ahayd محل بنك ولا هذا يعني بس إن حبض الجوجي أكو هذا تصدقات ما يرتب واحد تصدقات واحد تري إن عايدة الجوجي أنا بتعرف واحد كذا واحد نوع عاي بس ترى الشيء إن الإشياء ترى واحد تري وعاي سان حاله بحيل هذا هنا إن عايد جدو أنا يبقى قرطه صدق هذا كان على هذا يجي جوا saddexdaaba waad igala hadashay laakiin daahir oo qof dhexdhexaadi markuu qofku dhexdhexaad yahay oo cimaamad sido horta nabadayn inuu sidoo ku heli karo ku hela ayaa horta saxa macna ma fahanti ma garatay adiga waxaynu ka wada hadalay in arintaasi ay noqoto aniga horta run baan ku sheegay wax kasto aan nabada ku gali karay wallahi billahi tallahi waa ku galay wax kastana waa u maray inay arintaasi afkooda oo dhamaato ma garatay arrintan aan leeyahay xaal baan daahir ka qaadayna de walaal wax weeyaan aniga yani taas anaa keensadayo maadaama aad adigu nin raga tahay anaa ku xukumayo afkayga ka idho kugu xukumay sababtoo waxyaabaha qaar intaan u oranayna waxay ahayd si aan u raadiyo inaan nabad soo dhaweeyo oo go'aan nabadaan horta nabadii waaba la igu diidayba anigu si kastaba aan u dhigo oo aan isku soo dhaweeyo oo aan soo dhaweyn sameeyo oo adiga xataa nin aad tahay oo aanad gabadh aad la mid ahayn oo rag iyo dumar kala tihiin laakiin anigu horta arrintan tobanaan wax oo kale oo ka daran baan sameeyo aan uga jeeday in arrintaasi aan gogol iyo nabad ay isku soo noqoto ma garatay laakiin adiga taynu ka wada hadalay waxay ahayd xabad joojin
in arrintaasi dhacdo haddii heshiiskaa la qaato oo sida saxda loo qaatana aan arrintaa aan soo afjaro inta rabadaantaa lagu dhex jiro ta kaysaa kuu soo hadhay iyo ta ikraan kayse ta kayse iga gaabay sugya ha okay ta kaysaa kuu soo hadhay ta kayse maadaama aan nabad waday oo aan doonayay in arrinkaas oo dhan lasoo afjaro kaysena anaa xukumay anaa ku idhi kaysow inantaas maadaama madaxaygaas waxaa ku dhacay kaysow waad xukuman tahay waa inaad gar iyo gardarraba inantaa cimaamadda saartaa ma garatay anaa taana xukumay anaa kaysena xukumay tii ikraan baa soo hadhay ikraan xataa anigoo xukumi lahaa oo ikraan ay ii xukumantoo xukumi lahaa ayaa wax kala dhaceen kawdhe markaa ta kaysena waa taa kaysena anaa xukumay oo ku idhi maadaama arrintaas aan soo afjarayo oo bishaa rabada aan rabo inaan ka faa'iidaysto oo kiiskaasoo dhan soo jaro daahirna wuu igu yidhi adaa iglanay iga mas-uula adigana waa inaad arrintaa go'a saartaa inantaa go'i saasuu ku saaray taadaa soo hadhay anigu taada haddaan xataa ku daray waxaynan ka wada hadlin ujeeddadayda dhammi waxay tahay inaan ku raadiyo maadaamaan qof nabad raadinayahay labada dhan isku soo jiidaya ahay inaan dee ku daro oo tii nimana aan dee qabsado waa ka baxay ilay hadda dadka Soomaaliyeed cadaaladda dhegeysanayaan qof markuu hadlayo qof uu yahay waxaan rabaa inuu cadaalad ka hadlo anigu nin naag ma sheekeeyo waxaan ka hadlayaa cadaalad ilay maxamed iyo hadii kayso waxay tii walaashii baa lix wiil dhashay ma fahamtay cadaaladda adkaysi walaashii u weysay in la saaro marayaa saaray markuu kayso mara saaro nimco kayso walaashii iyo hooyadii hindise xilsiyaa saaraya imaamada anaa xukumay baan ku yidhi kayse anaa xukumay halkaa cadaaladda ka hadlaya hadda cadaaladda ka hadlaya waa wadaa dee hawsha kayse waa wadaa hawsha inanta dhinaca kalena waa wadaa dhegeyso kaasi horta aniga waxaan arkaa hal dhinac ka raacday oo anaga wakiil baad naga ahayd wakiil qofka ahayd adoo haynin aad xukun iska rid dawaale ah aniga adiga waxaan ka wada hadalnay oo wakiiliga ahayd xabadoojin iscafin iyo saaligirin iyo isxaasiin wakiiliga ma ahayn in xabadda la joojiyo oo garbaashka labada dhinac la joojiyo ayaa wakiiliga ahayd dhinacayga laakiin anaa rabay inaan kiiskaa soo xiro laakiin dee waa laygu diidayba taasina ayadoo lagugu diiday dhegeyso taasina iyadoo lagugu soo diiday inaa caaw haddaan xaal ka raacdo qalad bay kugu hedi cadaalad darro saddex oo maxay sameeyeen dee waa lagugu soo diiday maxaaba keenay meesha soo geli kelmaddan xaal eeg hadalkii wuu ku dhaafay waxaan ku yidhi arrintii aan galay horta aniga dee daahir adigu imaad soo dirsan nimco iyo faamiligaasina imay soo dirsan tolkay laakiin anaa arrintan isu xilqaamay baa ku adigu hadalku midhaa kuma galo caawa xageed soo martay dhegeyso kaasi waa qodobka labaad qodob saddexaad waxaa weeye adigiyo aniga isoo qaadatay soo maaha dhegeyso ma qaadan see u qaadan maxaan ku xala qaaday muxuu ka imaanaya kuma micnaha u jira aniga hore u sheeg ku jira ka hadlaaba aniga wax la raadigelin iyo xaal iyo iscafis haddii malaa'igta ila soo diray adiga ma igu tiri mas-uul baad maxaa ka tahay badan waxay iga tahay xabadoojin waxaad codsataa waxay ma doonayo in la sii garbaasho meelyaha la suuxeeyo la iscaayo waxaan doonayaa cayda laba dhex in istaagto waxa igu timid taasay dee taa kugu imiye taa haddaaban aad iga yeeshay oo aad igu tidhi iglanay adaa iga mas-uula adigu i xukun ma igu tidhi xataa waxaa daahiroo samay ma igu tidhi haddaa xukumaysid waxaad igu xukumaysaa hawl aan hawshii aan kala qaadan shaqada aan ahayn ka baxsan kiiskaasoo dhan baan rabay inaan soo afjiro maya aniga dhegeyso aniga weligay awogeyna ma noqonin addoon anigana addoon noqon ma karo aniga waxaan ahay qof caadi oo biniaadan nool ta saddexaad waxaa weeye haddaada iglan dhinac ka rarnayn markuu ilka case intuu qolka qadar tegey beenta iga sheegay ya uu yidhi iglan buu ku soo calow soo dirsaday maxaa ka soo gasho dhihi weyse ula hadli weyse waa adiga hadda hadlay ilka case arrintaa xaal ka bixi raaligeli ka bixi been baad iga sheegtay intaad igu diiddo wala hadalkaygii maya dee taa in adeerkay anigu eeg wixii aan isnidhi
taa inaad arkay wixii aanu anagu isnidhi muhiima laakiin arrintaas in laygu soo diiday keliya baan sheegay midda kale anigu dee ilka case iyo nimca jookartoona ma odhan daahir baa igu soo calaacalay iyo daahir baa yidhi laakiin inaa anigu waxaan u sheegay anigu raadiyey oo hawshaas markaan halkaa layfka soo galayna waa sheegay anigu wixii la duwayo anigu xalayna waan soo waxaan ku yidhi qofka hadduu wixii aan idhaahdo uu duwayo meel kale u turjumanayo waa arrintaas laakiin aniga cid ii soo calaacashay hadhow iyo hadeertoonna ma jirto ilka casena anigu ma odhan daahir baa ii soo calaacalay adiguna iimaad soo calaacalin nimco iyo maxay ahayd tolkayna iima soo calaacalin laakiin anaa dee daahiro hawshan galay anaana rabay inaan kiiskaas soo afjaro kiiskaasna waa ku fashilmay waa saad sheegtay iminkee waa ku soo fashilmay waana dhammayn kari waayey waana laysoo diiday arrinkiina halkaas ku yahay hayo intaas u dhimaatay markaa waay waa mahadsantahay